كل حرجينا isbedel ka dambe iman doono siyaasadena wareegi doono oo kan hadan ugu heelin doono shacabka waliba haweenka Soomaaliyeed qaab macnaha wixii ay xaq u lahaayeen iyo inay dalkan hooyadu ay badbaadin karto inaan u wareegi doono dhanka siyaasadda oo waliba ay tahay siyaasad aniga aan ka nacfiyo maahane mid ummadda Soomaaliyeed u noqon doonto maaragtay wado iyo ku daysasho mid mudan in u wareegi doono hadii Ilaahay taasna hada rajeynaya dhanka waa kusoo shaqeey dhanka kalena bulshada ugu shaqeeyo ayaan rajeynaa hadii Ilaahay laakiin ma aha had isjiidka iyo xoogan hada socdo iyo isbaababkan ma aniga waxaan rabaa iyadoo hadaan noolahay oo Ilaahay nafta igu gaarsiiyo iyadoo bulshadayda ii garatay waxa aan u qabanayo inaan siyaasadda soo galo ay raali iga tahay ogyihiin inaanan aniga waxba ka daba marsanaynin ee aan rabo iyaga noloshooda iyo inaan wixii aan kala qaban karo iyo wixii fikro aniga aan qabo oo wanaagsan inaan ayaga la wadaago taasan ku imaan doona imaha xoog waxay ku imaan doonta xeelad aqoon iyo waxtar inaan dalkan u leeyahay oo la jecel iga hayso dalkan taasan ku imaan doona hadii Ilaahay hadda ma aha laakiin saxaafadda waxay ahayd 2004 ilaa 2007 ka shaqeynay idaacadaha Afrikada bari banaadir iyo Afrika markii dambe dagaaladii dhaceen aan ku biiri rabay saxaafadda aniga hadda u baahday dib ugu noqon karaa because aqoontiidu waa leeyahay inaan shaqeeyo war akhriyo waa ahaa Ibrahim Shoosaar waa ahaa faalooyinka waa qori karaa marka dhibka jira waxay tahay xaaladii markay soo adkaanaysa arkaan dib uga laabtay fankiygan walba ku jiro oo koreya si raacday marka tan waa mehnadayda waa raqaana si fiican saakadaan u soo tafaxeeto inaan hadana dhinac shaqadii ka qaban karo aan qaban karo shaqadayda marka alxamdulillah waxaan rajeynaa bal Ilaahay afshirtahana waafajiyo ku dantooda garta Allah naga dhigo kuwi dalkooda iyo dadkooda wax taro Allah naga dhigo oo aan dan kale ka horumarsan laakiin tadanto shacabkooda Soomaaliyeed ee dhibaataysan dhan waliba dhibaato ka haysta xaq abaaraha xaqii maxaa yiraahdaa wax walba oo dhibaato u jiro kuwi dalkan ka samata bixidaha la dadaal Ilaahay inuu naga dhigo wallahi aragtidayda hadan ka hadlo ma wixii hore mise waxa hadda wax macna ma sameynaya sababtoo ah erayada mugay miisaanka lahayd ee nuxurka lahayd ee bulshadana isku maqli jirtay ee ku kala tala qaadan jirtay meeshan ma taalo eraya la bedelay iyo waxyaabo badan oo laga xishoon jiro hadda wax arkaysa masraxyada la saaraya waxay kamid tahay waxyaabaha nabad guurka ku dhacay fankeena kamid tahay ma abwaana joogo dad waxa joogo qubara ah marka qofka fanaanka uu soo baxayna dhaqan waxa ahaan jirtay in uu soo maray heesaha hirgalay imtixaan laga soo qaado erayada iyo laxanka iyo muusiga la kontaroolo hadda jaantaa rogan waa ma hadli kartaa waa heesi kartaa ha socoto marka ma la dhihi karo fan anaga heerna gaarsiin karo ama jiilku cusub ee iman doona wax u tari kara ma aha kan hadda jiro waa wax bariisaysi la yiraahdo oo aanan loo meel dayin oo aanan meelna loo fiirin bulshada Soomaaliyeedna iyada laftirkeeda qaladaadka dhinaca ka leedahay sababtoo ah waxa xun iyo waxa fiican way kala taqaanaa bulshada waxaad arkaysaa wax wanaagsan way ka sii jeesanaa wixii xumaayna way saacabato waxay kamid tahay marka dhibta nagu dhacday oo dalkan ku dhacday nasiib daradan haysatay kamid tahay waxaana lambar 1 ku aniga ee aan saaray waa bulshada Soomaaliyeed because iyada wax kala saarto iyada waxa xun iyo waxa fiican kala taqaano marka dhibka jiro waxay tahay inta ay u saacabato waxyaabahaas qaladaadka ah bari ubadka ayaga laftooda ay dhaleen guriga ubadka markii lagu barbaariyo oo si wanaagsan loo soo koriyo oo akhlaaqdiisa laga shaqeeyo anigaas wuxuu noqdaa cunug waxtar leh laakiin anigu waxyaabaha qaar kood ee bulshada u saacabato ubadkooda xataa wadada ay haystaan wada qurux badan ma noqonayso baday noqoto xagga dhaqanka iyo xagga akhlaaqdi intaba xagga fankeena hadda wuu ka liitaa waxaana aan maanta leeyahay gardarada waxa iska leh waa bulshada Soomaaliyeed oo ka dhigin weysa dhaqanka iyo akhlaaqda burburayso aysan ka hadlin u sacbiyaan waxaad arkaysaa qof hal heesa la soo dhigaya oo wanaagsan oo ka hadlayso dhaqanka iyo diinta ka hadlaysa maanta hadii la soo dhigo waxa laga yaabaa inaysan 100 qof oo daawanin tii ugu xumeed oo akhlaaqda xumeed oo dhalinteena yar maanta ay wadadeeda raacayso na milyan iyo 2 milyan fiirsanayso bulshada marka ma aysan fiirin bayska gurigooda iyo dhashooda noocaasi hadii iyaga shacabka u sacbinaan buritoole iyaga laftooda galaysa dhibaatada marka akhlaaqda ubadka laftirkooda ha fiiriyaan
waxa wanaagsan ilmahooda ha u dooraan anigu taasaan leh eedan waxa iska la bulshada Soomaaliyeed heli kara dariiqi wali waa jira wali maxaa la yiraahdaa way nool yahay fanki Soomaaliyeed dadkii shalay wadada wanaagsan soo gaarsiiyay oo suugaanteena Soomaaliga nabaray in anaga ku shaqeyno oo akhlaaqiyana la soo baray anaga waa jooga qaar nool waliba qofka soo baxayana waa inuu noqdo qof talent leh awoodaas leh ka bixi karo qobaradaasina ay ka soo saxaan erayada laxanka akhlaaqiyana xataa labiska anaga dhaqan aan leenahay gabadha Soomaaliyeed in asturanta in maxaa la yiraahdaa ay u agtaa gabar Soomaaliyeed dhaqankeeda ay leedahay gabar Soomaaliyeed surwaal ku heesaysa arkaysa gabar Soomaaliyeed qaawanada arkaysa oo bari bulshada loo sacbinaa hal qof oo dhigaysa ma arkaysa war Allah ka baqo is astur oo dhaqankan anaga malihin ma jirto marka akhlaaqda si burburayso iyo dhibaatada jirto waxa ka mas'uul bulshada Soomaaliyeed waxa ka mas'uul culimada Soomaaliyeed wax la yiraahdo wacyigelin ma jirto dan diin haday noqotay dhan kala cid ku wacyigelinaysa ma dalkan marka meel kale ku socda anigu waxaan dhihi lahaa fanka Soomaaliyeed ma ahan mid bulshada akhlaaq daro loogu gudbiyo waa mid bulshada lagu wacyigeliyo waxaan u sheegayaa dadka arintan ku shaqada leh waanadii waaweyn ee wixii nool joogo iyo kuwa hadda joogaba inay daba qabtaan xaaladan iyo dhibaatadan fanka Soomaaliyeed ku sii socdana hadaysan ayaga maanta isan bar qabanin meeshan ka sii fog ayaan tagi doonaa heeskii maxaa la yiraahdaa had u dambeeyay afka sidii afka loo ilaalin lahaa afka yagii la dhalan rogay lagu aasay dhoobada adawaha uga dhicnay bara afkaaga bilowinka taabobsi qoraalka aqriska buuga bayaan weeri ba'da jaha qada ra'sa akaba maana wahaya runtii heeskaasi dhalinta Soomaaliyeed waxaan ugu talagalnay in ay ku bartaan dhaqanka iyo afka waliba hadda waa balaarin doona qaybaha ka dhiman degdega marka hor ku sameeyay wixii ka dhiman insha Allah soo dhameystiri doona si ugu noqoto kaydka ay leeyihiin dhalankeena yaryar aadna u mahadsantiin waa idin mahad celinaa mar kale